shir looga hadlayay amniga deegaanada maamul goboleedka Hirshabelle ayaa maanta waxa lagu qabtay magaalada Jowhar waxaana halkaas shirarkaasi ku yeeshay maamulka iyo mas'uuliyiinta maamulka Hirshabelle ee saraakiisha ciidamada ee jooga deegaanadaasi warkaasna magaalada Jowhar waxa inooga soo diray Ibrahim Cali Nuur. shirkan aan caadiga ahayn ee looga hadlayay intiisa badan amniga deegaanada Hirshabelle waxa shir gudoominayay madaxweynaha Hirshabelle iyo ku-xigeenkiisa waxaana shirka ka soo qayb galay oo goobjoog ka ah qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada qalabka sida gaar ahaan booliska dowlad goboleedka Hirshabelle iyo ciidamada qaybta 27aad ee xooga dalka Soomaaliya sidoo kale shirka waxa qayb ka ah gudoomiyaasha labada gobol Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana shirka intiisa badan diiradda lagu saaray isla markaana lagu gorfeynayay guud ahaan amniga deegaanada Hirshabelle sidoo kale shirka intii uu socday waxa looga hadlayay oo gogol xaar u ahaa doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan deegaanada Hirshabelle gaar ahaan caasimadda Hirshabelle ee Jowhar ku aadan doorashada dowlad goboleedka Hirshabelle iyo waliba midda dowladda federaalka Soomaaliya ee foodan lagu soo haysa markuu shirka soo dhamaaday waxa warbaahinta ugu warbixiyay shirka waxyaabihii ka soo baxay wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hirshabelle xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Khayre. shirkan aan caadiga ahayn wuxuu ku saabsanaa xaaladaha amniga ee soo kordhay waxaan looga hadlay 3 qodob qodobada looga hadlay oo ugu waaweyn waxa kamid ah qodobka koowaad guud ahaan waxa warbixin laga siiyay lagu kala warqaatay xaaladda guud ee amniga dowlad goboleedka Hirshabelle 3 bilood ee ugu dambeysay xaaladda halka ay marayso waxa warbixin ka bixiyay wasaaradda amniga oo aniga aan hogaaminayay waxaan iyo sidoo kale saraakiisha amniga oo ayna warbixin badan loogu dhageystay oo xaaladda amniga halka ay mareysay iyo waxyaabaha u qabsoomay hay'adaha amniga iyo gaar ahaan wasaaradda amniga sidoo kale waxa la isla qaatay oo looga hadlay qorshaha kala guurka ama qorshaha ciidamada loo yaqaan transitional plan-ka qorshahaas oo aad dowlad goboleedka Hirshabelle ugu diyaar garowday maadaama aan ognahay in mar dhow oo bilaabo doono qorshahaasi guud ahaan dalka oo dhan gaar ahaan dowlad goboleedka Hirshabelle ay u diyaar garowday si ciidamada AMISOM haddii ay dhacdo in goobo badan ay baneeyaan loogu diyaar garoobo dowlad goboleedka Hirshabelle oo kaashanayso dowladda federaalka in la buuxiyo goobahaas sidoo kale waxa shirka looga hadlay shirka amniga dowlad goboleedka Hirshabelle oo aan caadi ahayn oo madaxweynaha uu shir gudoominayay in la sameeyo guddiga amniga doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle iyo heer federaal. Ibrahim Cali Nuur, TV-ga Universal, Jowhar. Walaal waxaan ku guda jirnaa wararka ka imaanaya